عليكم وعلى سيتين ما في عنتين الحمد لله نوني في عنا هاي مركز تدوير دا جوجتين وني سلامي ولا ليال مانتا وحنين دوبيا مقال هبلو بدن ويديستين horta markii ugu horeysay waxaan islahaa I don't know wayar waxaan islahaa malaha YouTube Soomaalidu I don't know anyways مقالكن guys waxa weeyaan postpartum stuff so waxa oo dhan u baahnaan doontid dhalmada kadib postpartum markaa gashid so alaabtoo dhan aan soo iibsaday iyo saan isku diyaariyaan ii sheegayaa horta muuqaalka intaan sii wadin waxaan iga codsanayaa intaa fadlan subscribe igu dhufatiin like igu dhufatiin comment yar igu soo qortiin assalaamu calaykum salaanta soo cesha insha allah hataa markaan soo dhaafo horta wax maan doon intaan ka hadlo malaha muuqaal gooniyaan ka dhigi doonaa laakiin waxaa jira wax la yiraahdo guys postpartum depression imika Soomaalida waxay badan kugu ee bartaan xanuunka dhimirka dhalmada kadib laakiin waxaan doonayaa intaa mid kale ah fahamtiin waxaa jira wax kale oo la yiraahdo baby blues waxa weyn walaalayaal haween kasta ku dhacda hablo kasta ku dhacda maaha kuwa depression kale ila jirkaagii 9 bilood hormonkiiba isbedelay jirkiiba isbedelay imika dhalmada kadib jirkaaga dib buu isku soo celinayaa hormoneski dib bay isku soo celinayaan so laba toddobaad ugu horeysa baby blues ayaa kugu dhacay wax la yiraahdo baby blues waa maxay waa ooyin badan emotional ayaa noqonaysaa qof kasta bada ziyaado dad bay ka badan tahay kuwa kale laakiin waxaan doonayaa intaa fahamtiin oo isku diyaarisiin baby blueska kama dhigno intaad awaalinaysid kama dhigno intaad depression waxa kugu dhacayso bas waa normal hablo kasta ku dhacdaa baby blues research ka sameeya hadda doonista muuqaalka aan ka duubo isoo sheega laakiin waxyaabo badan oo ka qaban kartaa cuntadaada waa inta fiicnaysid hurdadaada fiicnaysid koleyba umurada tahay imika ilmaha dhashada waa wax sahlan ma aha cuntadaada waa inta fiicnaysid so taas markaan soo dhaafno waxaan horta intusi doonaa wax oo dhan aan soo iibsaday isaan isku diyaarinayo baby number 2 postpartum markaa kadibna waxaan ka heli doonaa cuntada muhiimkee waxa u baahantiid jirkaaga nafaqo u soo celinaya insha Allah okay so waxaan ku bilaabanaa kuwii muhiimka markaas aad dhashid koleyba adaa lagu jeexay ilmaha amse adaa dhashid caadiyaan dhig badan ayaa ka tagaya so doctorku wuxuu ka oranay aduu dhig badan zaid orta ka tagay waxa muhiim inta iron cuntid laakiin aanu markastaba habla ka soo keenada iron markastaba cun aduu dhig badan ka tagay adii kaleba so iron supplement ka qaadan doontid waan tusi doonaa laakiin inta ka hor xagga yar basket kan wuxuu yaalaa musqusha xaggan hoosta iyo dusha labadaad musqul baan kaniif ayaan isticmaalaa waxa ugu jiraan wax oo dhan aan u baahan yahay markaan andalo right oo dig iga socdo so muuqaalkii hore kan waa aragtaan waa adult diaper waa kan isagoo weyn isagoo gabadhan ay sidato so adult diaper waxaana u baahan tahayna maxi pads dad ayaa jiro maxi pad kaligood uu ku fulan tahay aniga laakiin labadaba waa u baahan yahay so labadaba waan soo qaatay xagan ayaan ku xirayaa xagana waxaa igu dhex jira socks oo inankayga marka wiilkayga markaan dhalay lugaha ay barare ahayd so kani waa compression socks bararku lugaha ka kaxeenayaa so xagana waan ku xiraystay xagana waxa weeyaan nursing pads waxa weeyaan caanaha marka ilmaha siinaysid caanaha ka daadanaya so wixii isaga ilaalin lahaa so basket kan wuxuu yaalaa labadaba kaniif saaniga lahaa waxaana xaggan ku haystaa baalkan uma baahnid anu labadeeda saddexdeeda kaniif gurigeyga kaniif by the way guys waa reer Djibouti waxa uu naqanaa musqusha waxa yaala badee xaggan ayaan soo dhigay waa baalka biyaha daadiya so kaaya isticmaal laakiin dibadda markaan baxayo ama maalintan dhakhtarka kani ayaan soo iibsaday so markaan soo dhaafo taasoo waxa u baahnaan doontid xagga hoosta waxaa jira wax la yiraahdo witch hazel oo haddii hoosta ka dhashay waa dawo natural ah waan haysta hadda waan dalbaday waan waayay xaggan dhigay laakiin kaasina way fiican tahay markaad xirinaysid kuushka intaad dul dhigtid wuxuu hoosta ayuu qabow u keenayaa
dad badanna waxay sameeyaan waxay qaadaan kani laaseerka barafka freezerka ayaa lagu xirayaa isagoo qabow ayaa xiranaysaa oo hoosta debe ila dhiig baa ka daadanaya waa waxdaa ku nasanaysid so taa markaan soo dhaafo guys kani ayaan rabaa inta aragtiin kani waxa weeyaan suunkii ah xirinaysay markaa dhalmada kadib so muuqaalkaygii hore waa ka aragteen so waa kun different stage-ka laakiin sida islaamaha baadiyaha markay dhaloon ama hablaha baadiyaha markay dhaloon waa la gabadha waxaa lagu xirxiraa maro si calooshu dib usoo noqoto hablo badanna way ka cabadaan taasid marka dhalmada daraadeed ama uurka daraadeed calooshooda weynaata waa muhiim markaasaa u dhashidba intaa isduubtid so kani waa kan suunka xaggan buu igu jiraa so kani waan soo qaatay wiilkeyga hadda waxaan xirtay 3 cishood 4 cishood caloosheedii markaa way noqotay laakiin imika waxaan ku dadaali intaan xirto 2 toddobaad ugu horeeya ama waa sii wadan kartaaba bil waa iska xiran kartaa so taasi waa taasi xaggan kalena waxaan ku hayaa nursing pad adaa ilmaha naas siinaysid ilaa waxaa u baahan tahay dekeeshiri fiican so kani wuxuu u fiican yahay waa ka furasaa and then it's perfect waxaan oo dhan by the way guys Amazon-kayga ka heli kartiin waxaan kaloo xaggan ku hayaa walaalayaal supplement-kan badan aan tusi doonaa laakiin xaggan waxaan ku hayaa shaahan oo muuqaalkaygii hore baa ka aragtaan waa mother's milk ayaa la iraahdaa waxa weeyaan shaah laga sameeyey fenugreek iyo fennel oo wuxuu badiyaa caanaha naaska anigu wallahi kani aad iyo aad buu caawiyey especially intii ugu horeysay ee dee caanaha naaskaygu ay baranayeen so kani tijaabiya shaahaas Amazon aa ka heli kartiin Walmart waana macaan you know maxay kale so haddii aad tahay hooyo oo dee naas ilmahaaga ku tala gashay intaad siisid inankayga wiilkayga sanadkii ugu horeeya oo dhan ayaan siinay naaska xagga diiniyaanka waxaa wanaagsan 2 sannadood intaa naaska aad siisid laakiin qasab maaha inta naasku ilmuhu ka cabo so inankayga sanadkii ugu horeeya umaan siiyey markii waan ka joojiyey laakiin iminka waxaan isku tijaabin intaan 2 sannadood ka dhigo laakiin sanadka ugu horeeya naasku nuujin sanadka labana waan u shubay oo masaasadu ka cabi so taasida ayaan ku talagalay iminka waxaa soo baxay baalkan aan ituso raqiis maaha $200 bay ahayd Canadian ah laakiin waxa weeyaan pump machine mid kale haystaa kaasi laakiin waa intaa fariistid oo fish ku xirtid oo intoo dhan naaska lisasid waa fadhisaa waqti badan ayay ka qaadanaysaa laakiin kani waxa weeyaan mobile so waa charge garanaysaa waa xiranaysaa and then waxaaga iska qabsanaysaa caanihiina dee waa lisasaa so it's very nice weli ma tijaabin kartoonkiisa ku jiraa saa warkasiin waan tijaabin doonaa but waxaan islahaa it's a very good idea because anu waxaan nici jiray intaan bisaa meel u fadhiyo dheer mashiin aan lisayo caano malaha 30 minute 4 goor maalintii so waan tijaabin doonaa waan ka warkeeni doonaa insha Allah bakani uu fiican yahay xitaa hadda doonsi muuqaal kale waan ka dhigi doonaa sa caanaha naaska u biirin lahaa hadduu caanaha naasku ka yar yahay laakiin this is one thing hadduu caanaha naaska ka yar yahay horta shaaha waa shaah wanaagsan biyaha badso waxaana badsataana mashiinka anu kani dushaan ku haysto dhakhtarkayga ii qoray oo markaa lisasid jirkaagu wuxuu isleeyahay okay ilmahan caano badan ayuu u baahan yahay markaas caano badan ayaan sameynayaa buu jirku isleeyahay so taasi daraadeed it's a very good trick laakiin muuqaal gooni aad rabtid waan ka hadli doonaa saa u biirin lahayd caanaha naaska so taasi markaan soo dhaafo iminka waxaan ka hadlanaa supplementka waxaa u baahantiid so obviously ugu horeysa waxa weeyaan iron kani waa kii dhakhtarku ii soo qoray dhakhtarku hadda wuxuu ka oran karaa oo dhiigaaga waa iska caadi laakiin hadana daba khaadir ayaa kugu dhacaya waayo dhakhtarku wuxuu kuu sheegay in markuu dhiigaagu zaid uu yar yahay so iska wanaagsan tahay inta iron iska qaadatid cuntadana waan ka hadli doonaa kana waa prenatal kan qaato so prenatal kan waa Thorne very good quality Amazon-kayga waa ka heli kartiin prenatal-ka laguma talagelin inuu markaa uuraa leedihid xitaa uur kadib waa intaa qaadatid especially haddaa ilmaa naaska siinaysid aduu ilmaadu 40 baxaaga iska wado
it's very good. waxaana xagan ku hayaa probiotic inuu fiican yahay especially the ilmaha adaa dhashay bacteria ilmaha even caanaha naaska kaa qaadanaya way u fiican tahay so probiotic xaga waxaan ku haystaa vitamin D3 haddii aad joogtid dee dhul dibadaha oo dee qorax badan ay arkayeen vitamin D3 waa u baahan tahay xagana waxaan ku haystaa DHA-na haddii aad ura leedahay haddii kaleba waa wax wanaagsan kana waxa weeyaan prime rose oil waxay u fiican tahay horta wejigaaga skinkaaga finanku kaa kaxeynaya walaadaas u fiican u qaadatid ta kalena waxay wanaagsan tahay intaa qaadatid adu malaha bil ka hor intaa dhalin waayo jirkaagu diyaarinayaa dhalmadu u diyaarinayaa xitaa kadibna way fiican tahay intaa iska wadatid waayo nafaqo badan ayaa ku jira adaa leedid bil kasta markuu dhiigu ka yimaado dee xanuun badan aad dareemtid kani waa mid wanaagsan aad qaadan lahaad vitamin E baa ku jira oo dee u fiican bisaaniga lahaa jirka iyo cidiyaha iyo timaha and yes vitaminska waaba intaas ta ugu dambeysaan tusi lahaa tani bas aniga waxa iga qabsatay aad ayaan u jecel yahay oo essential oils saa u taqaantiin xaga miiskayga waxa bay agyaaraba 2 xabadood oo aan mar kastaba aan shido gurigayga waxaan jecelahay inta udgoon aan dareemo so labadan ayaan soo iibsaday kani waxaan tea tree kana waxaan rose essential oil labadan ayaan isku laaqaa waan marsadaa lavenderna waa soo qaadan kartaa oo ku dejinayaa so labada toddobaad aniga muuqaalka bloggiisa markaan ka hadlayay baby blueska waxa wanaagsan intaa samaysid wax kastoo niyadaada ama qalbigaaga farxad u keenaya isku qasab intaa soo lugaysid qoraxda isku qasab intaa daawatid waxyaabo kaa qoslinaya isku qasab intaa ilmahaaga la sheegaysatid waxa qaban kartid qabo aniguna cadarada saan jecel yahay ilaahu ma og especially essential oil gurigayga waxaan ku dadaalaa mar kasta intaan uunsigan ku shido maskati waayo labada toddobaad waa muhiim intaad naftaada aad xasuusatid oo sida murugadu ay kaa tagto right so labadan ma isku laaqa and I just love it xagga cuntadana haddaan ka hadlo guys baadiyaha islaamuhu badanka waa la buuliyaa right waxaa la siiyaa muqmad hadaa heli kartiin fadlan cuna waayo waa hilib badan iyo subag hilibka iyo subagu laftigiisa kuma buunaanasid waxa nafaqad bay jirkaaga soo celinaysaa so proteinka badsada bariiska iyo baastada waxa iska yareeya laxooxda waxa waxba nafaqo jirkiina nima keenaso waxa wanaagsan intaa badsatiin hilibka proteinka anyways walaalayaal xaggan ayaan kusoo gabanayaa muuqaalka waxaan rajaynayaa intaa ka faa'iidaysatiin insha Allah idinkuna haddaa waanii hablaha haweenka imika dhale hooyada cusubka hoosta kusoo qora dee waa kaas walaalayaal insha Allah waa inoo madhow waa salaama